wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Xuseen Cabdi Xalane oo maanta dalka soo gaaray tan iyo markii xilkaasi loo magacaabay ayaa waxaa si diiran garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ugu soo dhaweeyay wasiiro ay ka mid yihiin wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya, wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud, xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya, safiiro dowladda Soomaaliya u fadhiya dalalka caalamka, saraakiil sarsare oo ka mid ah ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, ganacsato, qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir. wasiirka ayaa mid u gacan qaaday dhammaan mas'uuliyiintii halkaasi ku soo dhaweeyay. wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Mudane Xuseen Cabdi Xalane oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ugu warbixiyay imaanshaha dalka uu maanta yimid isla markaana mahadnaq ballaaran u jeediyay mas'uuliyiintii halkaasi ku soo dhaweeyay. wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Mudane Xuseen Cabdi Xalane oo aan hordhigna su'aal ahayd bal sida uu arko xilka loo dhiibay iyo qorshaha ugu talagalay in wasaaradda loo magacaabay uu ku hogaamiyo, isagoo ballan qaaday in uu halkeeda ka sii wadi doono howsha wasaaradda maaliyadda isla markaana carabka ku adkeeyay inaysan dhici doonin qof damba oo ka mid ah shaqaalaha dowladda in ay mishaar la'aan ahaato inta uu xilkaasi hayo. madaxdii dowladda, xildhibaanadii iyo shacabkii kalebana ay igu soo dhaweeyeen, jacaylkaa badan iyo soo dhowayntaa badan ee lay muujiyey. culays bay igu noqonaysaa aniga, laakiin waxaan ballan qaadayaa intaan joogo hawl adag oo waddani ah oo dalku iyo dadkuba qiimeeyaan inaan u qabto baan idinka ballan qaadaya. wasiirkii sii joogay iyo shaqaalihii hawshay wadeenna halkii baan ka sii wadayaa aniga, laakiin waa la yaqaannaa ajandahayga. qof damboo dawladda u shaqeeya oo aan bisha mushaarkeeda ku qaadanaynin ma dhici doonto intuu ina xalana wasaaradda maaliyadda caynaan ku hayo. waxyaabaha ka midkay ka mid tahay si dawladda sharafteedii iyo loo soo celiya dalka dadka u shaqeeya sharaftooda. wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Mudane Xuseen Cabdi Xalane ayaa xilkan oo kale ka qabtay xukuumaddii uu hogaamin jiray Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, waana markii labaad ee xilkan loo magacaabo isagoo looga fadhiyo inuu wax badan ka qabto arrimaha hor yaalla wasaaraddiisa. xasan yuusuf cali, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.